markab dagaal oo laga leeyahay wadanka Holland oo ay saaran yihiin ciidamada midowga Yurub ayaa saaka ururiyadii hore ku soo xidhay dekada caalamiga ah ee Berbera kaasi oo ujeedada xidhitaankiisa ka dambeysay kulan ay la qaadanayeen wasiirro iyo saraakiil ka socotay xukuumadda Somaliland markabkani markii uu ku soo xidhay isla markaana uu dheega u soo saaray dekada caalamiga ah ee Berbera waxa fuulay kana qayb galay shirkadda dhacay gudaha markabkaasi wasiirro ka tirsan xukuumadda Somaliland sida wasiirka wasaaradda cadaaladda taliyaha guud ee ciidanka ilaalada xeebaha Somaliland gudoomiyaha maxkamadda sare gudoomiyaha gobolka Saaxil duqa magaalada Berbera iyo sidoo kale saraakiil ka socotay ciidamada ilaalada xeebaha iyo jaamacadda culumta badda ee Berbera iyo sidoo kale gudoomiyaha la dagaalanka burcadbadeed ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland kulankaasi oo muddo saacada ka socday gudaha markabkaasi ayaa markii uu soo dhamaaday waxa saxaafadda la hadlay mas'uuliyiintaasi wasiirka dawladda amniga wasaaradda arrimaha gudaha dalka Jamhuuriyadda Somaliland Maxamed Muuse Diiriye ayaa waxa uu sheegay in kulankaasi lagaga hadlayay sidii loo xoojin lahaa nabadgelyada badaha Somaliland iyo guud ahaanba gacanka carabta waxaana uu ka waramay muhiimadda ay leedahay in laga wada shaqeeyo xoojinta nabadgelyada wixii aan soo qabsanayna waa sheegnay waxaad nala qabatayna waa sheegnay waxa aan halka aynu ka soo jeedinay iyo waxa idinku soo bandhigteen intaba waxaan filayaa inaynu midhaheega sida ugu dhaqsaha badan aynu arki doono aad iyo aad baad u mahadsantihiin runtii annagana xeerarka naga sugayo iyo howlaha naga sugayo sida ugu dhaqsaha badan ayaan u hirgelin doonaa aad baad u mahadsantihiin gacantiina u baahan waxa isaguna sidoo kale halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland Cabdi Xirsi waxaana uu sheegay in hay'adda UCAP Nastar iyo sidoo kale ciidamada midowga Yurub ay tababar siiyaan ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland isagoo si weyn ugu mahadnaqay ku faraxsanahay inaanu la qaadanay tababar ciidanka ilaalada xeebaha ay la qaateen ciidamadan iyo UNAFORTA tababar sida dadka loo badbaadiyo berigii hore waxa lagu gali jiray doonyo iyo markabka laakiin hadda waxa lagu galay tababarkan doonyo markab iyo helicopter kuwaasoo intuba ay doonayeen in ay qabanayeen maxaan ku raadayay badbaadinta dadka waxa kale oo ay tababarka ku siiyeen ciidanka raadarada aanu hadda cusub aanu rakibanay ay tababar ku siiyeen oo anfici doona ilaalinta xeebta waxa isaguna si weyn u soo dhaweeyay kulanka ka dhacay gudaha markabkaasi gudoomiyaha gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Ahmed maanta ay bishu tahay 4 halka waxa ka furmay aqoon isweydaarsigaas oo ahaa shuruucda badda iyo aqoon kororsi ciidamada badda iyo sidii badan looga faa'iideysan lahaa ciidamada militariga ee badda ee Somaliland maanta waad arkaysaan maanta waxaan u maleynayaa inuu aqoonsigii kuurkana soo saaray waxa iyaguna sidoo kale halkaasi hadal ka soo jeediyay saraakiil ka tirsan ciidamada midowga Yurub taliyaha howlgelinta ee ciidankaasi Mr Lucas ayaa isaguna sheegay inay si weyn ugu faraxsan yihiin in markabkoodu uu soo taago dekada caalamiga ah ee Berbera waxaanu si weyn ugu mahadnaqay saraakiishii ka qayb qaadanaysay tababarkii saaka lagu qaadanayay markabkaasi iyo kulankii dhex maray mas'uuliyiinta waxaanu ballan qaaday inay halkaasi ay ka sii wadi doonaan wada shaqeynta xukuumadda Somaliland iyo sidoo kale ciidamada midowga Yurub waxa uu sheegay inuu si weyn ugu faraxsan yahay in laga wada shaqeeyo sidii loo xoojin lahaa amniga badaha gaar ahaan Somaliland iyo gacanka carabta And I think that berthing in Berbera shows that we are ready for a next step. The security is in order. We train quite a lot with the Somaliland Coast Guard. gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland Aadan Xaaji Cali oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in kulankaasi muddada saacadaha socday laga hadlayay dambiyada ka dhaca dhinaca badda iyo sidoo kale sidii looga shaqeyn lahaa xoojinta nabadgelyada badaha Somaliland iyo guud ahaanba gacanka carabta waxaanu si weyn ugu mahadnaqay hay'adda UCAP Nastar iyo ciidamada midowga Yurub ee saaka ku soo xidhay dekada magaalada Berbera European ka tirsan UCAP Nastar waliba gaar waxa markabkan u leeyahay Holland dadka u leh shir marka shirka waxa laga hadlayay dambiyada ka dhaca badda iyo coastal guardska ciidamadeena badda iyo xeerarka la xiriira iyo waliba hay'adaha kale la halmaala sida hay'adaha law enforcement agency-ga booliiska iyo security-ga iyo garsoorka cadaaladdu ay ka mid yihiin marka wuxuu ahaa shir cilmiyeed ama seminar wax loo yaqaano la isku idaarsaday aaraa inagu waxaynu hayno iyo waxay keeneen wasiirka cadaaladda dalka Jamhuuriyadda Somaliland Maxamed Faarax Cadarre ayaa si weyn ugu mahadnaqay markabkaasi iyo saraakiisha saarna waxaana uu sheegay in xidhitaanka markabkaasi uu ka turjumayo nabadgelyada ka jirta dalka Jamhuuriyadda Somaliland dood cilmiyeeda lagu falanqeynayo arrimo fara badan si loo horumarin lahaa ciidamada badda aqoontooda shuruucdooda iyadoo dhan walba laga eegay
cilmi isweydaarsanka ka dhacay waxa noo sharafa maanta in ay Soomaaliland nabad noqotay markabkii ugu weynaa Netherlands calanka Steveligeed iyo in maanta uu joogo halkan ay sharaf inoo tahay insha Allah taala ay xigi doonaana kuwii dalxiiska iyo baacis ku imanayay saalo socotaan hadaladii laga jeediyay waxa ahayd bal marka dambe ima doonaa dadkii ajnabiga ahaa ee wadankan maal gashanaya isagoo sida inay yimaadaan waxay ahayd dowlatus iyo tababar ciidamadana badda aqoonsi ah waxay haystaan qalabkii diyaaradiiba halkan fadhido ka kacaysa kormeer bay sameynayeen waxa ay muuqata inagu inaynu u baahannahay marka laga go'aankaasi inaan wali khayraadkeena soo saaran halka inaynu gaadhno waxbay naga xigaan insha Allah taala markabkan dagaal oo laga leeyahay wadanka Daanishka ee ku soo xidhay dekada caalamiga ah ee Berbera Saaka ayay noqonaysaa markii ugu horeysay ee ku soo xidhay markab noocan ah tan iyo muddo laga joogo ilaa 1986 sida ay sheegeen saraakiisha